جزاك الله خيرا. سؤال تضواتناد سائلك وحليه هي الشيخ وما حي حكمك إن تصبح لجود ذكريو أما لجود تصبيح صدق حلق النبي عليه الصلاة والسلام لما أقوم واحد تصبح لإلهه نبينا وحكوكو بابي يددك إن يقعموه ذا كنت تصبيح صدان يسونا واسمي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه النبي عليه الصلاة والسلام وحكوكو انتي تسبيح ذا يا أذكار تقعنتي سيفريهس وحول النبي عليه الصلاة والسلام سوى ضمرك الله الله سبحكن بأناملكن فإنهن مسؤولات مستنطقات وحد كنت تصبيح ستان فريهن وايو maalinta qiyaamo waxba la weydiinaya waa kuwa laga hadalsiinayo maxaad qabatay baa la oranaya waxay oranayaan ilaahay oo nalagu ka tasbiixsanay marka horta faraha in laga shaqaysiiyo oo iyaga lagu wardiyo waa ta asalka weey waana tamudan waana ta nabigu isticmaalay alayhi salatu wasalaam amma tusbax illa isticmaalo aalad illa isticmaalo culimada qaar waxay yiraahdeen mashruuc ma aha oo lama jiday laakiin waxay leenahay sida xooga badan ee raajixa ah waa inay bannaan tahay hadduu qofku uga jeedo inuu ku xisaabsado wardigiis 100 jeer oo tasbiix buu la imanaya tusbaxuna waa 100 ama waa 330 99 kii uu 3 jeer ku celinaya waxa weeye haduu uga jeedo ku xisaabsi waxa weeye wax dhiban malaha taasina waa inay noqotaa maqsuud yaani wuxuu isticmaalaya markuu doonayo inuu tasbiixsado tusbaxa qofku farta intuu galiyo iska lulayo ama isagoo laqwi ku hadlaya oo sida leeyahay ya dad buu maagaya waxbuu xamanaya uu sheekaynaya tusbaxana xaragu ka dhiganaya waa rogaya dadka meelaha ka jooga waxay isleeyeen wallahi ninku wardi badana maanta balaqwi ku daldalmaya tusbaxuna waa dhaqdhaqaaqaya waxaana dadku isla yaqaanaan tusbaxa waxa looga dhaqdhaqaajinaya waa xus ilaahi la xusay ya waxyaabaha noocaas haday sida tahay ama dadka hortooda oo ku tasbiixsanayo cibaadooyinka noocaas oo kale in la qarsaday ku fiican tahay oo qofku si gaar ah uu sameeyo marka culimada diidaysa waxyaabaha ku diidayaan laakiin qofku markuu meel cibaado fadhiisto ama meel uu doonayo ilaahay inuu ku xuso inuu waxa weeye tusbixiisa hoos saga dhigto oo ku xisaabsado haday ujeedadiisu tahay wax dhiban malaha waxa jiro hadda soo baxay tusbax yar oo elektarooniga waa fargal la xidhanayo badhan leh oo qofku xagga hoose haduu doono inta uu rago kaatan uu eegiya badhankaas uu taabanaya waxa soo baxaya lambar baa soo baxaya sida markuu isaga wada cidina arki mayso dhinacna waa xarig baa kaga xidhan ama caag halkana waa madax uu leeyahay madaxii baa shaashad leh shaashada badhan baa ku yaala badhankana lambar baa ka soo baxaya hal mar markuu taabto lambar 1 baa ka soo baxaya sida uu u wado markuu eego waxa laga yaabaa 200 300 inuu maray cidina arki mayso isagoo iska soconaya ayuu farta gudaheeda ka taabanaya lambarkiina waa u socdaa markuu guriga gaadho أو مهردي سام مسجد كتبوا إيه يلا بقول 300 تاسوكنا ووح عبادة فوضينيس وأنا تصبح ونوع تصبح كمذا وحلم ذا برجرام موبيلات اللي سوق جريه وأنا بحضر عن استعماله وأكور ديو وحبل إلى هذا السبحة الإلكترونية تصبح إلكترونية بل إلى هذا جوجل بلاقي اللي جه ليه وإلكتروني markaad ku dhufato wuxuu ku bilaabaya lambarkiiba ku bilaabaya markaad 100 gaarsiiso baad hadana dib u soo bilaabaysaa 0 hadana 100 cusub baad bilaabaysaa hadaad doontana waad wadaysaa adoo mobilkaaga iska haysta baad waxa weeye ku tasbiixsanaysaa marka waxyaabaha soo dhani waa waxyaabo ama aalado aynu uga faa'iideysanayno alla subhanahu wa ta'ala xuskiisa inaynu badino tusbaxan waxa weeye la sameeyo ama boqolaha ama 330 ka iyo isagoo elektarooniga waa tusbax isagoo saacad laga dhigay waa tusbax
waa aalad